waxaa la isweydiinayaa oo si aad loo hadal hayaa waxa ay Ukraine u tiri karaan dhaqaalaha lagu saacidayo oo ka imaanaya dalal dhowr ah oo ayaga taageeray marka dhaqaalaha la siinayo Ukraine maxay ka caawin karaan ayaa la leeyahay horta dhaqaaluhu waxba mu ka caawin karaa waxa garan kartaa dawlad dhan iyo dal dhan oo dhisan oo hay'ad leh oo ciidan leh waliba saacadaan oo kala tada dagaal baa lagu jira ciidanka dagaalamaya uu qarash buu baahan yahay rasaas buu baahan yahay mushaar buu baahan yahay wali waxa hataa jirto warar ah in askariga ajnabiga ah ee maalinta qura ka dagaalama dalka Ukraine la siin doono $2,000 waa taa bishii waxay noqonaysaa $60,000 markii ciidamadu way mesela 20,000 oo qof ama 50,000 oo qof ama 100,000 oo qof oo ajnabi ah ay meesha soo galaan oo mid walba maalintii la siiyo $2,000 oo bishii isku noqon karta $60,000 de waad garan kartaa culayska ay leedahay marka waa ciidamada moralkooda lagu dhisi karaa wax badan baa lagu qaban karaa adduunyadana waxa lagu dagaalamaya waa dhaqaale marka reer galbeedka Mareykanka waxaana waxay isleeyihiin maadaama Ukraine way dagaal ku jirto inaana ciidamada aan niyad jabin ciidamadaas ay garanaysaa dadaal bixiyaan oo ciidamadaas ay noqdaan kuwo ilaa ay xad aad u adkeys waayo dagaalkan laba dhinac ayuu u dhaxeeyaa ruushku marna ma aqbalayo in dagaalka intuu ku jabaado reer galbeedku ay soo ceyrsadaan oo reer galbeedku kaga guuleystaan reer galbeedkuna iyana way ku adag tahay dhabtii in ay liqaan ruushku oo gabiyahaanba Ukraine cagsi mariyay oo magaaladii Kiev dhulkii intuu gacanta ku dhigay dawladda halkaas saldhigto haddii taas dhacdo reer galbeedku ceeb iyo wajigabax ayay shucuubta ee maamulaan kala kulmi doonaan maxaa markaa wax u muuqan doonaan kuwa afka ka nool laakiin macna kale Italy aan lahayn dhinaca kale ruushka Ukraine ma siin karaan haddana hubkan aad u waaweyn oo diyada lagu garaacayo maxaa yeelay haddii taasi ay dhacdo Russia iyadana quraan akhrinayso waxay tuuro doontaa wax la yaabo intaas ay dhacdana dunida xooti isku bedelayso waa wajigabax kale dhinaca kale haddii laga eegana marka waxaad moodaa xaalado si isu diidan marka nin walba wuxuu ka cararayaa dagaalka waa la wada galay laakiin qof walba wuxuu leeyahay ama labada dhinac mid wuxuu leeyahay adigu ceebkii ku raacineedii adkeyso geesinimadu waa in yaroo wax dhulka ku haysay marka laakiin ugu dambeyntii waxaad moodaysaa reer galbeedku waxyaabo badan ay ku haminayaan inaanay macquul ahayn aanay suurta geli doonin bay u muuqataa saasha laftirkeedu iyadu waxaad moodaysaa hadda in iyadu laftirkeedu culays fuulayo oo sida iyadu laftirkeeda ay rabtay aanay 100% aan gaari karin laakiin way adag tahay in dawladda ruushku hadda waxaan goboladii ay qabsatay oo guud ahaan bariga dalka Ukraine ay isaga baxdo way adkaan doontaa sababtoo ah dhaqaale badan baa ku baxay boqolaal ciidan baa wax ku noqday marka way adkaan doontaa arrintan ugu dambeyntii waa suurtagal in labada dal si uu isku afgarto dagaalka dalka Ukraine ka soconaya si yaro macna la isu dhimbiyo midaan haatan ma muuqato labada dhinac waxaad moodaysaa mid walba inuu ismubaynayo hadda dawladda ruushku isbuuc ka hor bay waxay soo rogtay ciidamada dalkaas ciida ah in shaqada laga fariisiyo askarta dawladda ruushku ay u noqdaan daadoodu ay noqoto 18 sano ilaa 45 sano jir ugu dambeyntii waxaad arkaysaa marka ruushka hadda uu doonayo ciidamadiisu marka hore 3 milyan ahaa in marka la dhimo aadana in la sii kobcinayo dhalinyaradii dalka ruushka waxaad moodaysaa dagaal loo diyaar garoobayo dhinaca kale waa tan adiga aragtay Kuuriyada Waqooyi reer galbeedka Mareykanka waa isku dhegan yahay Shiinaha iyo Mareykanka waa kuwa isku hanjabaya marka waxaad moodaa adduun si u walaaqan in lagu dhex nool yahay dawladda ruushkuna ma daawo doonto haddii Mareykanka hadda mesela dagaalkan waa uu soconaya Mareykanku waxa ku furan dabada dhinaca dagaalka mesela ruushku afka ma gelin karo Kuuriyada Waqooyi waa taa dadka tijaabinayso waa adiga arkaya Taiwan iyo ruushka kale yani Shiinaha la kala celin la yahay Shiinaha marka ma aha runtii nolol nin diblomaasi ah oo fahmi karo ama uu dhinac uu sheegi karo halkay ku dambeyn doonto waa la eegi doonaa dagaalka dalka Ukraine ka socdaase haddii labada dhinac aanusan caqliga shaqeyn Russia مثلا أفرت السنة لصورنا في دعوة شيء وحبي تبنيسي وحين أركيت إن القلبات في أمريكا في ناتو أي بلو سيار وحي سوريا كده عيبان يكون خلافي حالكم مرك واحد مورسة وح عقدنا وإن بدن كده أبوح أي دلالكان إن هاتنا يكونوا سوقا عيان لما قرنا يقورتي شكدوا قرح الدوزة لكن هذا أنا عقلي هي سياسة الدبلوماسية شغينا قرب والد أركدونا طبعا waayahay xoga aan helayo waxay sheegayaan Cabdiwaabow in labada dhinac ay isdhaafsadeen meydad ama asgar dagaalka ku geeriyootay ama ku waxyeelootay oo halkaasi ku dhintay maxaa wararkan iyadana laga hayaa hadii faahfaahino qaar oo aad helayso ay jiraan horta meyd la isweedarsaday wax macnaabo kuma fadhiyo dad nool baa la isweedarsaday mesela
askartii dowladda Ukraine waxaa dabcan bishii May 15 taqriiban haddaan taariikhdu aan khaldaynin baa waxaa jirtay 48 maxaabiis oo saraakiil sare ku jirtay oo dowladda Ruushka ku dhalatay in Ukraine u dhalatay in dowladda Ruushka ay wareejisay iyadoo 20 maxaabiis baa la jiray faahfaahin badan lagama bixin iyaguna waa taa marka waa suurtagal in dagaalka la isweedarsado Azovstal wixii ku jiray waa la soo bixiyay qaarna gacanta ayaa dowladda Ruushka u galeen waxaas waa iska hay'adda ba ka shaqeynayso waa suurtagal dowlad walba waxbay sheegan doontaa siyaasadda arrimaha dibadda laftirkeeda booskay saarnaan doontaa marka hal iyo laba iyo maydlis weedarsada iyo xogaa ciidamada la isdhaafsadaa wax weyn ma aha laakiin mar walba Ruushku garanaysaa ma ka tanaasuli doono magaalooyinkan uu burburiyay dhulkan uu gacanta kula soo wareegay mana jirto runtii wax lagu qanci karo dhowr qodob waa suurtagal in marka hore qodobo muhiim oo Russia ay ku qanci karto matalan haddii la yiraahdo dalka Ukraine wax military ma yeelan doono dowladda Ruushkana waxay ku yeelan doontaa ugu yaraan 4 sano military oo waaweyn haddii la yiraahdo waa macquul in Ruushka dib ugu baxo Ukraine caadi ay noqoto dhinaca kale dadkan Luhansk iyo Donetsk iyo iyaguna dhinaca joogana iyaguna la qanciyo waase wax u baahan tahay muddo dheer bay qaadan doontaa waxyaabaha ugu dhow dowladda Ruushka ay ku qanci kartaan waa un laba mid in dalka Ukraine bay wada baabiiso ay qabsato xoogeeda isticmaasho taa waa albaab waana samayn kartaa tan labaad waa in adduunyada caqli ugu soo noqdo galbeedkuna iyagu laftirkooda isbuurintan iyo bolxufsida intay joojiyaan si dhab ay Ruushku la hadlaan dabadeetuna Ukraine loo ogolaado inay noqoto jamhuuriyad caadi ah oo madax banaan laakiin wax military ah aanay yeelan doonin haddii ay yeelatana military tiradiisa iyo tayadiisa hubka ay haysan inta uu og yahay inay yeeshaan Ruushku inuu door saldhig waaweyn ku yeesho gudaha dalka Ukraine amniga guud ahaan dalka Ukraine ee dalalka caalamka in Ruushku ballan qaado Ukraine uu difaaco sida ku jirta heshiiskii 91 la galayba marka taa ay noqoto iyo sidoo kale inaan ku biirin wax urur ah oo reer galbeedka iyo NATO iyo wax inta la midka taa waa suurtagal Ruushku isaguna dhulkii uu Ukraine ka la wareegay inuu dib uga baxo xuduudiisa tago waxaas option waa wax meel yaala laakiin dariiq laftirkooda maanta bariimina ma aha sababtoo waxaad mudada dagaalka nin galbeed inuu haatan garanaysaa uu bool xogsiyo ciidamada si hubeynayo iyo intaara la isugu faanayo Ruushka laftirkiisu ma aha عنو حالنا شو يلقون الليلة معه وحسن ملاينا وحال يري حل بهارك تم جدته القبائل كنت ملحوين بوتين ونوري هاي والله بيكون ولا دون هذا حالة بالماسيات لا استعمال ودي عن مقرنة تشكل كله كله نجزاحي ugu dambeyn Cabdiwahaab waxa ay soo koobtaa khasaaraha ay wajahayaan dadka rayidka ah kuwaas oo ku sugan magaalada Zafrodonetsk oo barnaamijka horaanba aan ku soo qaadanay oo dagaalo culus marti gelinaysa labada dhinacna dagaalkooda ugu xoogan oo halkaasi ka socanayo maxaa khasaaraha oo la ogyahay ilaa hadda uu dagaalkaasi ka dhashay waa maasan tahay horta marka dagaal laga sheekaynayo waxa la adeegsanayo oo hubka oo labada dhinac isku weerarsanayaan ma aha waxa qof Afrikaan oo Afrika joogo tayadooda ka warrami karo Ukraine ma aha dal sahal haatan reer galbeedkiiba hubka ku daabulaya Poland baa loo marinaya saaki laftirkeed waa dhigaan arkaya marka dabcan dagaalka aad buu u xoogan yahay xaalad xun waa ka jirta laakiin waxaad wadaysaa Ruushka laftirkood in muddadii 3 bilood ahaa ee markaan ka soo bilaawno 24 bishii February ilaa iyo hadda dagaalku uu soconayo sida uu rabo waxuma socdaan dalkii Ukraine la oran jiray quruxda banaana hadda dhulka la dhigayo waxaad moodaysaa meel daacun uu ka dilaacay sidaa daraadeed baday khasaaraha ma qiyaasi karno laakiin kulley macjidan ka faalooda dhinaca dagaalkii arrimahaas iyagu waxay sheegayaan in dagaalku aad u badan yahay wasaaradda arrimaha difaaca ee dowladda Ruushka dhawaantan waxay sheegtay Ukraine in ka badan 720 kun askarteeda dagaalka ay ku weyday 40 kun ku dhawaanay dhaawac noqdeen Ruushka yani sidaas isla yani labada dhinac ee propaganda adeegsanayaan mid walba kan kale waxay u adeegsanaysaa khasaaro badan uu soo gaaray marka waa un laba qof dagaalamayo warbaahinta propaganda isku marinaya waxa kaloo jirta dagaal midkan rasaas ee ka weyn oo dhinaca internet ka socdo مثلا وكالة ورقة دلك الروش وكالة اللي يرادو RIA اللي يرادو دوانتان واحد شاكتي إنه ويب سايت اللي الميليتري دلك الروش أما كله بالميليتري دوانتان كوها برعدا يسوي رلان waxay taamar gacanta ka baxay gaso markii dambe lagu soo celiyay marka waxa dagaalka rasaasta ee tooska dagaal ka xoog badan baa jiro dhinaca internetka ah hadda bangiyada reer galbeedka iyo Ruushka laftirkooda waa isku dhagan yihiin wasaaradii difaaca iyo shirkadii isgaarsiinta baqaati kala taagan dhaqaalihii dunida baa wada xirmaya tabaan xaaladu waa culus tahay khasaaraha dagaalkuna de kulli haatan uma malaynayo cid si rasmi u shaacin karto waxa uu noqon doono laakiin waa la fahmi karaa de meeshu waa waxa la yiri meesha laba awr ay ku dagaalanta cawska ku baabaa
marka dee waa shacabka Ukraine baa kolley dhibanayaala waxaaseed moodaa magaalada Mariupol oo kaleeto maanta telefishinka Al Jazeera waxa uu warinayaa in ay khatar tahay in daacun uu ka dilaaco sababtoo waxaa leeyahay dadkii meydkooda oo saray kuwaas burburo iyo wixii ba isla kacay dowladda ruushkan weli kuma guulaysan baa leeyahay magaaladaas ay sii nadiifiso marka dee waa xaalad murugo badan laakiin dee waxaan u malaynayaa kolley khaladka iyo dhibaato halkaa ka dhacday Russia oo keliya qaadamayse reer galbeedka iyaguna dabcan kaalintooda ay qaadan doonaan waxaa kaloo jirta askar hadda lagu maxkamadeynayo weliba ingiriiska u dhalatay oo dee gobolkan Donetsk la yiraahdo ingiriiska saaka ka calaacalayay dee hawsha hadda u ballaaran tahay wixii kasoo kordhaana dee waa ogaan doonaa laakiin khasaaraha hadda ka kala dhacay dabcan ma yara waa dee dalka Ukraine oo dhan baa can fikrati abihim dhulka la dhigay aad iyo aad aan kugu mahadcelinaya Cabdiwaab adiguna aad baad u mahadsan tahay saaxiib guuleyso